kulanti wanaagsan daawadayaal halkan oo warbaahinta Soomaaliyeed production kuna soo dhawaada barnaamijkeena qodobada caawa ku daawo doontaana Abdul Rabiid waxa ka mid noqonaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo daqiiqadii ugu dambeeyay safar uu ku tagi lahaa degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe isla markaana uu ku dhiirigelin lahaa ciidamada qaranka u bedelay wadanka Uganda iyo hadalhayn xooggan iyo guux oo ay abuurtay safarka madaxweynaha uu ku tagay wadanka Uganda. haddaba maxaa ka jireen madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Museveni uu ka dalbaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu baajiyo iyo xog laga helay sababta filla Soomaaliya ay dib ugu dhigtay. qodobada kale waxaa ka mid noqon doona taliyaha militariga Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raage oo markii ugu horeysay ka hadlay dilka taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir General Farxaan Qaroole xilli taliyihii Oduwa wacd uu ku maray in laga argudi doono kuwii dilay General Farxaan Qaroole. haddaba muxuu ka yiri tacsida General Farxaan Qaroole oo uu ka qayb galay barnaamijyadeedkan ayaan idinku soo gudbin doonaa. qodobada kale waxaa ka mid noqonaya fadeexad culus oo laga soo warinayo filla Soomaaliya iyo ergeyga arrimaha abaaraha oo lagu eedeynayo lunsashada lacago $100 milyan kadib khilaaf soo kala dhaxgalay isaga iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre. waxaanu barnaamijyadeedkan idinku soo gudbin doonaa fadeexada laga faafiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo guux xoogan caawa ka abuurtay magaalada Muqdisho iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xogaha warinayo in la lunsaday lacag malaayiin dollar oo lagu deeqay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ergeyga arrimaha abaaraha uusan ku ridin qasnada dawladda. wararkii ugu dambeeyay wax walba aad kaga baahan tahay macluumaadka sheegayo musuqmaasuqa iyo fadeexada laga warinayo filla Soomaaliya ayaynu idinku soo gudbin doonaa. silamada waxaan idin wadaagi doonaa dawladda Soomaaliya oo tallaabo ka qaaday Xasan Daahir Awees iyo cabsi laga qabo hanjabaadda shakhsiyaad kale oo ay dawladdu u hanjabtay ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeedkani. qodobadaas iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaan idinku wadaagi doonaa. asaatee dhammaantiinba waxaan idinku codsanaynaa inaad nagala qayb qaadataan faafinta wararkan isla markaasina muuqaalkan like dhadaan lana wadaagtaan saaxiibadiina kale mahadsanidin faafinta ayaanu gudageli doonaa. haddii aan ku bilaabo hadalhayn xooggan ayaa ka dhalatay safar madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu galabnimadii maanta ugu ambabaxay wadanka Uganda xilli saacadii la soo dhaafay. madaxtooyada Soomaaliya ay warbaahintu ay la wadaagtay xogta macluumaad sheegayo in madaxweynuhu uu safrayo degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. madaxtooyada Soomaaliya ayaa warbaahintu u qaybisay macluumaadka safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu ku tagayo degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo oo daqiiqadii ugu dambeeyay madaxweynuhuna safarkii Cadale uu bedelay wadanka Uganda. waxaana howlwadeenada xafiiska madaxweynuhu mar kale ay sheegeen in socdaalka madaxweynaha wadanka Uganda uu daaran yahay ka qaybgalka shir ka dhacaya magaalada Kampala ee caasimadda wadankaasi. warbaahin kale lagama bixin iyada oo 8 Agoosto isla sanadkan sidaan oo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu safar ku tagay isla wadankan Uganda halkaas oo la xasuusto inuu madaxweynuhu kala soo kulmay bahdil xooggan kadib markii madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni fagaaro uu goobjoog ka yahay uu ku bahdilay isla markaasina uu sheegay in wadamada Carabta ay u doontaan lacagaha boorsooyinka siyaasiyiinta laga buuxiyo balse Uganda ay diyaar ugu tahay inay ka taageerto taageero dhinac walba oo amniga la xiriira maadaama ciidamadeedu ay qayb ka yihiin ciidamada ADMIS ee ku sugan Soomaaliya. arrintaas oo si weyn loo hadalhayay ayaa waxa dadku qaar ay ku macneeyeen inay tahay digasho oo uu ku digtay madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. dadka dhaliilaya siyaasadda madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegayo in safarada dibadda ah aysan hadda mudneen maadaama xaalad dagaal wadanka uu ku jiro isla markaasina uu yareeyo ugu yaraan socdaalka dibadda uu ku aadayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. si kastaba ha noqotee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intuu ku sugan yahay wadanka Uganda waxa uu kulamo gaargaar ah ula qaadan doonaa madaxda wadankaasi oo uu ka mid yahay madaxweynaha wadanka Uganda Yoweri Museveni oo ah nin aan hadalka la gamban isla markaasina marar kala duwan bahdil xooggan u geystay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisii horaan gaaray magaalada Kampala ee caasimadda wadanka Uganda. geesta kaleetana fadeexad culus ayaa laga soo warinayaa filla Soomaaliya iyadoo ergeyga arrimaha abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame lagu eedeynayo lunsashada lacag malaayiin dollar kuwaasoo dawladaha reer galbeedku ay ugu deeqeen dadka abaaruhu ay saameeyeen. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa la sheegay inuu bilaabay in qaab farsameysan uu kaga faa'iideysto abaaraha dalka ka jira isagoo haatan ku sugan magaalada London ee cariga iyo dalka Ingiriiska. ayaa la warinayaa in uu bilaabay mashruucyo oo uu kaga faa'iideysanayo lacagaha loogu talagalay abaaraha wadanka ka jira in uusan ku ridin qasnada dawladda isla markaasina uu bilaabay akoon gaar ah oo lagu ridayo ergeyga arrimaha abaaraha. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
ayaa la warinaya in arrintaasi isku khilaafeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre kadib markii khasnada dowladda laga waayay lacago malaayiin dollar ah oo ay dowladaha taageero Soomaaliya ay ugu deeqeen dadka ay saameeyeen abaaraha waddanka ku dhuftay. ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa la sheegay in ergeyga arrimaha abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu wax ka weydiiyey lacagta ka maqan khasnada dowladda oo ay dowladaha reer galbeedku ay sheegayaan inay ugu deeqeen Soomaaliya isla markaasina toddobaadyadii la soo dhaafay bayaan ka soo baxay dowladda Mareykanka iyo dowladda Finland ay ku sheegeen inay ku taageereen lacagahaasi dowladda Soomaaliya. hase yeeshee lacagahaasi ayaa laga waayay khasnada dowladda iyadoo la warinayay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre kadib markii uu weydiiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ay si weyn isugu fiican yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uusan ka jawaabin fariimaha ra'iisul wasaaraha iyadoo arrintaasina ay dhalisay khilaaf dhexdooda taasi oo dibadda keentay in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo xafiiska antidhowrka guud ay dabagal ay ku sameeyaan lacagihii dhowaan reer galbeedka Soomaaliya ay ugu deeqeen iyadoo bar ka mid ah lacagtaasi laga waayay khasnada dowladda. arrintan ayaa noqonaysa fadeexad weyn iyadoo hadaleynteeduna caawa si weyn ay kaga taagan tahay magaalada Muqdisho. geesta kaletana taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Oduwaa Yuusuf Raage ayaa markii ugu horeysay si kulul kaga hadlay dilka taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Generaal Farxaan Qaroole. taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Oduwaa Yuusuf Raage ayaa markii ugu horeysay si babliga kaga hadlay dilka loo geystay Allah u raxmaday taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir Generaal Farxaan Qaroole. taliyaha oo maanta ka qayb galay halka ay taalo buugga tacsida Allah u raxmaday taliyihii qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ayaa waxa uu si qoto dheer kaga hadlay inta uu ka yaqaano shakhsiyadda Generaal Farxaan Qaroole. Generaal Oduwaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in Farxaan Qaroole uu ahaa wiil dhalinyaro isla markaasina mustaqbal leh si la mid ahaa haliyey qaran isaga oo sheegay in muddada kooban oo uu ku jiro ciidamada qaranka inuu wax badan uu kaga faa'iideeyay isla markaasina marar kala duwan naftiisa uu horay inkastoo uu ka badbaaday shirqoole uu sheegay in loo maleegay. Generaal Oduwaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in ciidamada oo doorkoodu ay qaadan doonaan isla markaasina waxa uu wacd ku maray in uu argudi doonaan halyeygii qaran ee ka baxay. waxa uu ahaa haliyey qaran oo dalka soo maray waxa uu waddanka uu kaga faa'iideeyay kartidiisa aqoontiisa iyo khibradiisa ciidan isagoo suurageliyeen marar dhowra la soo afjaro damina ay damacsanaayeen argagixisada ayuu yidhi Generaal Oduwaa Yuusuf Raage. Generaal Oduwaa Yuusuf Raage ayaa gunaanadka hadalkiisa waxa uu la dardaaramay qaybaha kala duwan ee ciidamada isagoo u soo jeediyey in ay ku tusaale qaataan Generaal Farxaan Qaroole isla markaasina dalkooda ay u dhintaan isagoo wacd ku maray in loo argudi doono Generaal Farxaan Qaroole. ugu dambeyntiina dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa tallaabo ka qaaday Xasan Daahir Aweys oo hadda uu ah maxbuus ku jira xabsi guri iyadoo albaabada la isugu dhiftay barihii bulshada uu ku faafi jiray afkaaraha lagu taageerayo ururka Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday in gebi ahaanba la mamnuucay faafinta wararka la xiriira Al-Shabaab lagu faafiyo baraha bulshada iyo weliba mareegyada internetka lagu faafiyo. ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho waxaana uu faahfaahin ka bixiyey howlgal lagu xanibay baraha bulshada ee shabaabku adeegsan jireen. wasiirka ayaa sheegay in ka badan 40 buqcadood oo ay internetka ay ka adeegsan jireen dagaalamayaasha Al-Shabaab sida uu warka u dhigay hawada lagu cunay isla markaasina kuwa kale haatan lagu mashquulsan yahay. dowladda Soomaaliya ayaa hore u mamnuucday in warbaahinta madaxa bannaan ay tabiyaan codadka wararka la xiriira Al-Shabaab waxaase haatan wax cusub ah in gebi ahaanba la diiday in laga hadlo war kasta oo ku saabsan Al-Shabaab. wasiirka uu ka jawaab celinayay su'aal la weydiiyay oo ahayd arrinta Xasan Daahir Aweys oo xabsi guri ku ah magaalada Muqdisho dowladana gacanta ay ku hayso dhowr jeerna lagu arkay baraha bulshada isaga oo taageeraya fikirka Al-Shabaab ayuu sheegay wasiir Cadaala in la mamnuucay wax kasta oo Al-Shabaab lagu dhiirigelinayo. hadalkiisa ayaa loo fasiray in la mamnuucay Xasan Daahir Aweys inuu adeegsaday internetka isla markaasina muuqaalada tooska u soo geliyo mareegyada bulshada ay ku kulanto. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaare Xamse Cabdi Barre gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Madoobe ayaa siyaabooyin kala duwan waxay u sheegeen inay ka go'an tahay dagaalka ka dhanaa Al-Shabaab. labada laga qaaday Xasan Daahir Aweys ayaa la sheegay inay jiraan shakhsiyaad kale oo wadada ku soo jiro kastoo uusan si faahfaahsan uu kaga hadlin Al-Cadaala. gudaana daawadayaasha ayaan ku soo meeraya barnaamijyada kala socotay warbaahinta Soomaali weyn Production iyo kulantada wardi warsan.